السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورهي سود دواد وربان إنهايا وربان إنهايا سود دواد أصحاب تقاليقة مركز كسرنتين وولاشين على صبار وعلى سعبدي جنرال يوتيوب حيل هذا سود دواد أصحابي علس العاب النوها علس آد بوق دونتين أيان نوها يا عوض كودا soo dhawaada channelka YouTube-kan waxaan ilaga rabaa intii hore subscribe saartana inay like saarto intii aan wali saarina subscribe inay saarto faraha ilaahay kugu yaaleysiiyana hadee nuux iska lacag ma aha ya hadaad like saar lahayd iyo hadaad subscribe saar lahayd in adeerayaal Soomaali Maxameday lacag ma wax lacag shirkadda kugu ma dalacayso naxariis yeelo ilaahay dartiis naxariis u yeelo ma fahmaysaa marka war Soomaalidu waa laga raacay YouTube waa laga raacay marka waa meelaha la isku wareysto waay meelaha la isku xakureysto meelaha qisooyinka lagu wadaago waay marka social media aad iyo aad buu fiicay ma garanaysa asxaabay wallahi wax galafta iga yaabiyana waan arka koowdhaa taas hadda horta badeeda hadda ma geli kari wax galafta iga yaabiyo oo qiso aniga galafta i qabsatay oo mucjiso ah ayaan meesha ku hayaa hadda taas kama hadlahay oo had diyaar u miitaa inaan soo qufo ma garanaysi laakiin qiso ay wiil kale ku dhacday ayaan rabaa inaan nala wadaago ayaan rabaa inaan iniga sheekeeyo ma fahmaysin marka waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada oo warkana igaha u raariciyo oo wax walba qisada dhaceys waa iska dhigeystaa sababtay tahay laga yaabo qaladkaas inaad adigaba aad ma aragtay aad ama qisada oo kale ay ku qabsato ama qof kale oo taqaan ama ay ku dhacdo marka waxaan laga rabaa in aad maxay aheeday aad waxaan dhacdo way waxaan ka hadlay dhacdo way dhacdadana qiso weeye qisooyinkana waa la soo qaataa ma ogtiin marka waxa waay wax walba dhageysigeeda waxa laga qaadaa cilmi يعني waxaa laga qaadaa aqoon baa laga qaadaa aqoon ayaa laga qaataa marka dhacdooyinka qisooyinka marka dhageysato waxa laga qaataa aqoontaada sii kordhaysa marka aragnimadaada ayaa sii kordhaysa ma fahmaysaa marka asxaabay soo dhawaada qisadan wiil bay ku dhacday siday u dhacday baan rabaa inaan intaan ka fahansanyahay inaan ani ka sheekeeyo marka asxaabtaydu waxaan leeyahay ku soo dhawaada channel YouTube على سعبدي hadda halkaan ina dir waa garanaysin farax nuuxiya yaan la ishakranin aniga hadalka inaga ma hakranayo idinkana faraha iga hakranin walaalayaal marka walaalayaal horta waan ina salaamaya meel kasta ku sugantiin ilaahay baa mahad iskale ilaahayga nabad iyo caafimaadna siiye ayaa maxay ahayd mahad ay u sugan tahay alxamdulillah shukr almulk waxa sheegay adduunkan waa dambi ninkii maanta nool berri ma noolaanayo markastaba in ilaahay loo mahadiyo hadaad caafimaad leedahay inaad ilaahay mahad loo celiyo waa maxay ahayd muslimiinta waa laga rabaa ma garanaysa inta xanuunsan waxaan leeyahay ilaahay caafimaad ha siiyo inta guur la'aantana ilaahay guur barakaysan oo khayraysan Allah siiyo inta awlaad la'aantana ilaahay awlaad baraka leh siiyo inta awlaad haysatana ilaahay awlaadooda u barakeeyo inta guurka haysatana guurkooda guur ay ku raaxaystaan ay ku noolaadaan maxay ahayd guur fiican oo wanaagsan oo khayr Allah abshir Allah uga dhigo marka waxaan leeyahay inta dhimatana Allah u naxariistaan leeyahay ma fahmaysaan marka walaalay Soomaali Maxameday soo dhawaada warkay waxba yaan inagu sii dheereynina sheekada aan noo dhaxgalo marka waxa way walaalayaal wiil baa qiso ku dhacday wiilka qisada wuxuu yiraahay wuxuu yiri anigu waxaan qabaa buu yiri xanuunka la yiraahdo neerfa xanuun miyaan يعني معناها قلل ساء تقين في Soomaali قلل على وضعها أما الصوح دماء على وضع قف كان صوح دماء قباء أما قلل وحساس على وضعها أنا ما أقال لا جد أكره حول لكن في Soomaali الصوح دنا وانكو بقول قف كان وصوحان على وضعها وقلل لنا على وضعها فهميسان معناها حنون كاس مركب بركة علاش بركة أيوكا هست ودنها حق ودنها أيو حنون كيس قابل جوها wiilka asooyar xanuunkaas ayaa ilaahay ba xanuunka macnaha u keenay oo dib aragtay waxa sooyar la soo darsay buu ahaa sooyar ayuu xanuunku ku dhacay marka wiilku wuxuu yiraahday xanuunku fiir dhakhtar baa ligeeyo dhahay dhakhtarkii markii ligeeyo daawo iyo qoru dhahay daawadan wuxuu dhahu yiri kaniinkan biyaha ku darso cabitaanka biyaha ku darso
إلا نولشاada inta ka dhiman isticmaal ayaa la yiri kaniinki wuxuu yiri saasan isticmaal jiray markaan daawada toos u qaatay oo dhakhtarkii uu saa ii siiyay wuxuu yiraahday xanuunkii waa idaayay alxamdulillah shukr way idaayo dhahay markaan waan akhristu dhahay adana ka bacdi wuxuu yiri waan weynaaday waan qeen gaaray guur baan gaaray aabahay wuxuu jeclaystuu dhahay inuu ii guuriyo oo reer uu ii yeelo horta intaan guursanin horteeda waxaan damcuu yiri kaniinkiina mar iska joojiyo oo dhakhtarkii waxaan ku dhaho yiri dhakhtar kaniinkan hada wixii waan cunaa daawada markaas waan isticmaalay waan cabaay oo wada kaniinkii biyaan ku darsaday xanuunka isku markaayay inaan joojiyo ayaan rabaa dhakhtarkiina wuxuu ugu la taliyay kaniinkan ha joojin kaniinkan hada joojiso geedka xanuunkiisa meeshuu kaaga soo bilaabanayo ma garanaysaa kaniinkan wad anigana waxaan u yiri may waan joojin hadaad kolba joojinaysa kala yar fofogayso idho يعني xilxiyay aad toos u laqays kala fofogay yani waqtiga kala fofog la qoy dhaw markuu arkay inaan kaniinka aan leeyahay waa iska dayn aan leeyahay uu ikir la yahay dhakhtarka ayuu markii dambe wuxuu dhaw bal waayay kala fofogayso sidii baan sameeyay u dhawaan kala fofogay u dhahay kaniinka markaan kala fofogay ayaa wuxuu yiraahday hay xanuunka waa soo laabtuu dhahay sidii way igu soo laabtuu dhahay xanuunka suuxdunta igu soo laabatuu dhahay kadib dhakhtarkii baan u laabtay dhakhtarkii adig wuxuu dhahay wuxuu yiri waliba xanuunkan wuxuu yiri waa xanuunkan maskaxda ilaa wadnaha isku xiran ayuu wadnaha iyo maxaa la dhihi jiray isku xiran maskaxda isku xiran ayuu xanuunkan ayuu ku jiraa xidid maskaxdaada ka mid ah ayaa taagan sidaas uu xanuunkan kugu imaaday korontaana xididka lagu toogan karaa muudha wax buu sheegay hadda se laakiin kaniinkan aka difaacayo kaniinkan ha joojinin buu dhahay ka yani waxaas korontadaas lagu qaadanayo aka difaacay calaashaan macna adi kaniinkin baa isticmaalayo biyaha ku darsanayo dhahay ma garanaysaa kursiga ugu gaabanayso wax yar waxaan soo qaadan rabaa waxbaan soo saaranay kursiga ma aqaan hoos u degsanay ma garanaysaan marka asxaabe maxaa la dhahay marka wuxuu yiri dhakhtarkii wuxuu dhahay buu yiri maxay ahayd kaniinkan isticmaal laakiin ha gooyin marnaba ha gooyin marka xanuunka uu soo laabtaan ark ayaan wuxuu yiri si toos ah ayaan wuxuu yiri aan u wado dhahay aan u waday kursi meeshan ay dhibaan kaar qabeen ma garanaysaan wax sheekadan aad bay u dheertahay waan xarray inaan ila soo dhadhaweeyo saaraka si dhaqsi inaan nooga sheekiyaan raba marka wuxuu yiraahday kaniinkan toos wad haye baan u yiri markaan maadaama xanuunkii daawada wuxuu dhintaan kala yar fofogay uu xanuunkii dib u soo laabtay waxaan jeclaystay dhahay marka inaan toos wado waana weynaado dhahay kuray weyn baan noqday waxaa kaloo jirtaa wiir guur baan gaaray aabahay wuxuu jeclaystay dhahay inuu naag ii guuriyo aabahay wuxuu ii doon u yiri gabdha adeeraday dhalay gabdhii waxay dhana hebel xanuunsan baniinka xanuunsan oo suuxdima qaba anag ma rabno gabdhaha haddana habaryaalkay qaraabadii dhaleen haddana la ii doon u yiri ma ninka xanuunsan oo beerka ka jiran ma ninka xanuunsan oo wadnihiisa jiran mi anaga nul ku daray war ninka waa jiran ma rabnay dhimki waa xigtadii gabdhii xigtadii dadka qaraabadii ehel ama reebti ha noqdo ama ilma adeer ha noqdo ama family ha noqdo gabdhii dhan hadda wiilkan ilaa yaraantiis ilaa hadda uu niweyn ka noqdo xanuunkan waa xanuun ilaahay maarag dariska ay cunugan la jiraan la daris la noqtay waay ilaahay un baana bogsin kara cid kale bogsin karta mala daawo un buu ku socdaa hadda marka wiilka daawo un buu ku socdaa daawada duu jooji xanuunku waa imaanayo marka naagihii waxay iska dhaadhiciyeen qofkan jiran inuu ma aragtay aan loo dhawaan karin wiilka si kale wax kale ma qabo xanuunkaasna daawadiisa uu iska qaataa noolaha nool buu ka mid yahay inta socoto ayuu ka mid yahay xanuun uu sariir la saarayna ma waxana waa qadar ilaahay waa la isku imtixaamay adduunyada waa la isku imtixaamay yani wiilkan dadkan waxay ka aaminsan yihiin asaga waxba uma arko ma garad marka bas adigu wiilka gabdhii qaraabada kulli sidii ay ugu diideen uu gabdhii ama reebti ha noqoto ama ilma adeer ha noqoto mehelka xanuunsan mehelka suuxdima qaba ninkan beerka ka jirana oo xanuunkiisa beerka haasto maya ay dhaheen bay dhaheen wadnaha laga ay dhaheen
أنا وحيد مركز سألها هذا لا وايدي بقى لكن وحيد وحبه ما أركونه دقبلها ولا ليه وحيد قناع سنين يعني لو قصبنا أسكت يهجروا هبدا يقول قناع سنين وحبه يعني لو قصبنا فرح قاعدة يهجروا مركز دم أبي وحس ميري نين أي صاحبة هايين بود أبي نين أي صاحبة هايين أو كمبلي أي أبين بي صاحبيهم بود كمبلين وإسلا شقيستان وده كمبلي إسكوليهم مود مركز إسلا شقيستان ninkaas gabar uu dhalay uu aabii doonay ninkii uu dhawr walaalo wiilkeyga gabar ma aragta inaan ku darsadaan rabaaye gabar meel iigu sheeg ninkii wuxuu dhiri ma wiilkaada hebel haa war gabadheydaan ku darayaa gabadheydaan siinayaa ogaaw sidii ayaa la igu sii wada gabadha xanuunkeyga waxba kama ogtoo dheh laakiin aabe iyo aabaheeda ayaa arrintan soo dhameeyeen ayaga waa isku kaadareen waa la ii soo aroosiyey gabadhii dhagdhag gurigay imaatay gabadhi markaan wuxuu dhahay aan arooski ka baxnay ilaa intii aroos la yahay toddobaad ama bil iska badhig aan joogno kaniinkan aan biyaha ku darsanaan la qaay way aragtaa buu dhahay intaa wuxuu dhahay way cabsanaysa way weydiin lahayd kaniinkan maxaa way may dhahayni wiil maalin basaan wuxuu isku ag fadhinay xaydhato yiri war walaalo waan yaabee kaniinkan maalin walba cabitaan ku darsanayso muxuu yahay markaas maanta ma iweydis aan dhooyire maanta ma iweydis haa alxamdu alshukri baan dhooyire inaad iweydini waaban sugaayay waaban kaa sugaaye laakiin waan kuu sheegay waxba kaama qarinay haye walaalay kaniinkan xanuun baan u laqaa waxaan qabaa wiil cudur qalala la yiraahdo anoo yar buu igu dhacay daawadan anoo yar buu dhakhtar ii bilaabay waraaqihiisa waa kuwan way ii xariisan waan hayaa intaasoo sanadaan laqaayaa haddaan joojiyo xanuunkan wuu soo kacayaa haddaan toos u wadana ma soo kacaayo ilaa noloshaada inta ka dhimanna waad wadaysaa buu dhakhtarka igu dhahay walaalay waa kasaanaan u cunaa haddaad awal hore ogeen sidaas u ogow haddaa iga runsanayn waraaqiyan daawada ku qaadanayo waa kuwane la soco dhakhtarkii hata daawada isiinay waan kuu geyn karaa waan u dhihi karaa gabadhan ka dhaadhiciy xanuunka aan qabo u sheeg walaalay haddii aad hadda niyada iga goosood iga naxsan tahay oo macnaha aad يعني أسأل من يقولك وحكوا قفلا قبلي هور ما داي ديدا إنتنا مركز حنون كوجو وقت ويكون عندهم تاو إسلية معنا سيدا سجى فكر كيس مركز حدي بحول أشكي قبضة معنا إن عيس أو إفرايد دانتنا صاف فكر هذا كصاف فكرين إفرايد إنها يقولين أنت كصاف فكر سنة تدير تكون نقطة سنة نقطة وقت لا أسبوع بدنا كصاف فكر أور إنا حتى قاد هذا كبقيس أور كوا بكا إلى علينا أبوه بفهم سا يا walaalay macaantoy ogow saas ogow gabar ugu qanacsanayna ani inaan aan dhibo mar rabo adiga soo fikiroy dhahay ku ta gabadhii shibday dhahdu dhay waxay ii jawaabin way iska aamustay sanad bay aamusneed hadal dama ma isoo inta wiilkan dabeecadiisa ay soo baaris wiilkan dhaqankiisa dabeecadiisa deganaashadiisa waxtarnimadiisa raganimadiisa baarinimadiisa daacadnimadiisa waxyaalahaas ay fiirinaysa iyo xanuunkan intuu daawada laqaa inuu wiilkan qabanayo ay fiirinaysa ilaahay amarkii intina uur may qaadin gabadh wuxuu dhahay uur may qaadin wuxuu yiri way intaa anay ugu maqnaado intaas maalinaha ka mid ay waxay dhahduu yiri walaalow horta waxaan u yiri ma soo fikirta laakiin sanadkii ay dhamaysatay sanad hadda waad joogtaaye waa kaan ku ballana sanad soo fikir ku dhahaye maxaa rabta marka see way xaalka keega ka waran waxay dhahday adduunka haddaan adi iska kaafuro ma malaynay nin adiga ka fiican inaan helaayo noloshayda dambe inaan guursanaayo adi intaan iska kaafuro ma malaynay adduunyada nin adiga ka fiican inaan helaayo xanuunkan xanuun ilaahay ku keena waa ilaahay ciduu doonana xanuun buu ku riday cidoo doonana caafimaad buu siin inta hadda daawadan aa qaadanaysa iyo intaan guriga wada joognana xanuunku kuguma arkin laakiin waad qabtaa waraaqahaada iyo daawadan aa cunaysaa sheegaya oo hadda ruux xanuunkaa daris laata laakiin hadda waad caafimaad qabtaa bay tar qof dhaata dabeecadaada iyo dhaqankaada iyo sidaad aniga aan adi isku fahanana ruux kale uma qabi inaan ka helaayo ma garanaysa maanta haddaan adig kaa tago ku aan fahmi waayo haddaan guursado ka waran adi xanuunkaan baa qabta xanuunkana ani waxba ima yeelayo waa xanuun adi ilaahay adoo yar kugu rida waayo waxna iima dhimaayo ka waran ku caafimaad qaba intaan guursado
haddii beri aan u idhib ama uu idilay ama uu idancinay ama uu dhaqan karin ama uu dabeecad xun yahay ka war xanuunkan aad qabtana ilaahay baa ka ku keenay ee walaalo waan wada joogaynaa ilaahay idinkiisana ilaahay waxaan ka baryay tiraa inuu dhaxdeena ilaahay inuu ooglaad nagu israqo ayaan ilaahay ka baryay tiraa adig gabadhi wiilkii sidii wiilku wuu farxay markay sida tahay marka wuxuu yiri wixii waqtiga ka dambeysay gabadhi uur bay noqotay 4 ciyaal bay dhashay 4 caruur ay u dhashay gabdhihii ayaga ahaa ee bariga hore diideen mid baa maalin waxay dhahdo yiraaha ma ninkan beerka ka xanuunsan miyaan lagu dari midii sidaa tiraha ma hebel ninka beerka ka xanuunsan ma ani lagu dari ay tiraha yiri gabdhihii hore oo qaraabadii wuxuu dheelay ii doonay markay saadheysay ana waxay iga dhigayso qof oo macnaha waxba qaban karin oo ma reer dhaqan karin amise ninkan beerka ka jiran bay dhahday ilaahay wuxuu tusay nin bay guursatay oo caafimaad qaba wiilkii ka sheekaynaa arinta wuxuu yiri wiil bay guursatay wiilkan ishiisa ku dhacdo uu ka naxay markay hadalka tira wiil bay guursatay wiilkii markii beerka looga soo booday beerkiisa ma shaqeynaayo leeyahay wadnahiisa ma shaqeynaayo qalliin buu galay qalliinka haddana wuu dhintay halka cunugu ka dhalay haddana wuu dhintay ninkii waa ka dhintay wadnaha dartiisu uu dhintay ma garanaysa nin caafimaad qabay guursatay gay hadalka wiilkan ku tiray wiilkii wadnaha laga qabtay qalliin buu galay cunugu ka dhalay haddana wadnihii dartiisu uu dhintay asagina 6 sano wuxuu yiri hadda xaaskayga isqabnaa ana gobadhan wuxuu yiri 6 sano isqabnaa 6 sano 4 canuga ay haysaa caafimaad waan qabaa daawadeydina waan iska qaataa gabar noloshayda ugu qanacsanna waan qabaa ma garad marantan xanuun isku ay faanto kaninkan xuu yahay dheysana waxaan dhuwiira si alla saarftaan ku yeeri xanuunkan ood ogeyn Soomaad igu arkin hadda ha walaalay soo fikirkan ha igu degdegin haddaad i rabin oo ifridees soo fikir aniga haddaad niyada iga goos oo xanuunka dartii ii nacdo ma ku qasbay soo fikir si soo deji sanad baan fasax ku siinaa urkan inta waa ka ilaalinaa fahmaysa bal aniga inaan kala tagi karno inaan wada joogayn ii soo caday sanad baan fasax ku siin ma gar maantina i weydis hadalkaasna waan ka sugay laakiin waanad ku mahadsantahay wuxuu yiri gabadhi sanad markay soo fikirtay waxay aragtay ninkan inaan nin lagu doorsan karin ay aragtay nin caafimaadkiisa taama inaan lagu doorsan karin bay aragtay gabadhi markii dambana ay sanad joogtana wiilkii iida ku tiraahe walaalow adiga ninaan kugu doorsaday adduunyada inaan ka helaa ima qab ilaahayna 4 caruur siiye alxamdulillah nabadayn iigu joogtaa waddan wuxuu dad isjecel oo faraxsan aan ahay ma garanaysaa asxaabtayda markan waxaan leeyahay yaani aniga waan arkay dad badan oo dad cilada ku nacay aniga in la hadlay calasee waan arkay dad badan oo dad cilada ku nacay marka tira war qof hebelo gabar qurux badan aan meel ku ugu haya oo saas cilada meelaad ku qaaro dhahayn ama waxay ku dhahan gabadha ilbay la damxa ama waxay ku dhahayn ninka ilbula ayaa maxaa ama waxay ku dhahayn ninkaas waa dhagool maxaa ama waxay ku dhahayn gabadha waa dhagool maxaa ma fahmaysaa hadduu qofku hata uu dhagool yahay dhagoolnimadiisa ilaahay baa ku sameeyay ama intuu adduunka jooga ha noqoto ama hadduu urka hooyadii kala soo bixi qofku waxaa la fiiriyaa dabeecadiisa dhaqankiisa akhlaaqtiisa dabeecadiisa isfahankiisa ayaa la fiiriyaa cilad hadduu hata lugjiiska yahay qofkan ilaahay baa ka dhigay markasta waxaa ka muhiimsan qofkan dabeecadiisa ku qancin kartaa mise ma garanaysaa maalinta aakhiro ma jiro wax dhagool ah ma jiro wax jiis ah ma jiro wax ilaa ma jiro wax yaani aakhiro waxaan ku iri sidii anug hadda la dhalo kala noqonaysa ruux hadda la dhalo kala noqonaysa yaani qof walba soo orday fay hal cilad ma lahaynaysid maalinta aakhiro يوم القيامة markii la imaanayo ma fahmaysaa ilaahay kana illa ya kana curyaan ya kana saana maya agtiisa mata marka bini'aadanka dadka islaamka oo diinta islaamka ilaahay ku beer ee islaamnimada sheeganayo waswaaska iska daayaan shakiga iska daayaan ma fahmaysaan ilaahay laga boqo qofkan xaga dooq waa iska caadi dooqan kale waa iska caadi laakiin qof meel cilad ka qabo cilada haday adiga dib ku keenayn maxay way war dhagoolka waa hadal waa la gaarsiin karaa waa loo meedaari karaa meedar waa loo meedaari karaa
kuba akhristeena kaba sii daran kan kalena meedaarkiisu fahmaya kan kaloo lala hadli karana qaab loola hadlo kalaaba jirtaaba ayagaaba ka fiicanba dadka kale ayagaaba dadka kale ka dambiyarba kan dhigaa qaba 12 war buu maanta oo dhan dhageysanaya qofkan kale wuu ka sii jeedaa war maanta dhan agti hadii ruux lagu xumanayo ma dhageysanaya daniisa kale kuma qay ma fahmaysiin marka waxyaalo badan ani waan ogyahay ilaahayna dambigaas faraha badan dhinaca naga mariyo laakiin walaalayaalow wakaas ka fiirso xaalin hubsiina la yiri halgeela la siiya qof walba qofku ka aamin baxsan yahay ilaahay dartiis wax walba buuga gadaal ha u baaro ilaahay dartii ha u dulqaato ilaahay dartii ha u samro ilaahay dartii ha ku macnaha wax walba ha ku sharfo ma garanaysaan muhiim waxa waaye qofkan isfahmi kartiin isla noolaan kartiin seeway dabeecadiisa seeway akhlaaqiyadiisa ma garanaysaan meeqa maxay eeday meel walba ilaahay u dhameystire ama dabeecadii eberka ah ama diinta islaamka eberka ah ma garanaysaa oo habeena aad fahmi karin ma garanaysaa marka adduunkana fahanka iyo akhlaaqda diinta iyo waxa hadda meelaha ugu waaweyn oo qofka laga fiiri waa meelahaas ma garanaysaa hadii meelaha uu eber ka yahay caafimaadkiisana uu taamiyo waxba ku tari mayso marka asxaabay saasaa jirtaa marka wallahi anaga waa aragnay waxyaalo badan waan soo aragnay adduunyada waa usoo taagneen laakiin wiilka hadalka markaan ka maqlay oo hadalkaas aan dadka ina u gudbisay oo raali ka noqtay oo asaga ii soo sheegay wallahi billahi wax kasta waxaad mooday inuu markaa maskaxdayda ku soo dhacay aan adduunka usoo taagnaa marka anigana hadda hadalkaas horbuu macnaa dhiirigelin buu noo sii noqonayaa asxaabtayda subscribe la saaro horay ha loo socdo marka asxaabtu waxaan leeyahay faraha la nuuxnuuxiyaan leeyahay farah qisadii aniga ugu dhacdana galabta oo xagga baraha bulshada iga qabsatana insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo waxa laga yaabaa xagga ay TikTok inaan inaga soo sheego hadii kalena YouTube-ka inaan ka soo sheega la arkaa hadii aan hadda waqti u helo mar kale ya kulanti dambe halkan la igala socdo marka anoo taagan ma aragteen ayaan rabaa hadda inaan maxaa la dhahay aan